waxaad ogtihiin dawladda Puntland ayaamaha kan waxa ku socda dagaal dheer iyo colaad gaamurtay oo runtii dadka reer Puntland aan ku jirin oo ahayd mid aanan loo meeldayin waxa maalinta ka dambaysa soo rumoobaya waxyaabo meelo qaarkood lagu soo maleegay shirkii saddex geesoodka ahaa ee laascaano lagu burburiyey ee haddana la rabo Puntland in lagu burburiyo fariimihiisii waana soo gaareen Sawdiyaaru ma nihin difaaca dadkayaga dimuqraadiyada inaan difaacno diyaar muu tihiin ciddii ku gardaroota inaan iska dhicno diyaar muu tihiin dawladdiinna waxay diyaar u tahay xuquuqdiinna inay dhowrto oo aysan cidna uga gamban xuquuqda dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed leeyihiin waxaa maanta caddaatay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxay iska daba raaceen inay dimuqraadiyadda diidan yihiin oo ay la dagaalamayaan ma beeninaa hadalladoodii waxaa ku jiray 2013kiina waa la fashiliyey haddana ma dhacayso waxay caddeeyeen maalintaasna iyagu inay diidanaayeen oo madaxweyne xasan sheekh waa madaxweynaha maantana inuu diidan yahay federaalkan diidmadeeda ku ogayne dimuqraadiyadiina waa ku darsaday miyaynu ka aqbalnaa cidna uga ka aqbalin mayno xuquuqda dastuurkana siiyey oo aan xaqa u leennahay Soomaaliya waa dal federaalah waa dal dimuqraadiya waa dad axsaab badan waa dal dadku inay madaxdooda doortaan dastuurkooda ku dhigan tahay Puntland waxay difaac u tahay dastuurka Soomaaliyeed midnimada Soomaaliyeed iyo wadajirka Soomaaliyeed waxaad ogtihiin maalintii la sameynayay diiwaangelinta isku maalin baa dagaalku wuxuu ka bilowday Garowe iyo Laascaanood soo ma xasuusataan soo wax lagu talagalay ma ahayn maantana waxaan ognahay maalinta codaynta iyo inay Laascaanood la soo weerari doonaan laakiin ciidankeennu waa ogyahay difaaca iyo daryeelka ilaaliya dadka reer Puntland oo gaalkacyo dadkeeda ah waa difaaca dalka Sool magaalada Laascaanood qarsan mayno nacabka ku soo duulay ka yeeli mayno hadalladii Muuse Biixi shalay uu ka yidhi baarlamaanka waa wax cad oo isaga iyo madaxweyne xasan sheekh isla ogaayeen cidna uga baqi mayno haddii wax kasta dhacayaan sow ballan maaha inaan sarafteenna difaacno dadkeenna inaan difaacno diyaar muu tihiin cidna uga heebaysan mayno inaan difaacno ummaddeenna sharafteeda dawladnimadeenna iyo degaankeenna Soomaali waa baadi goonnay ciidamadeenni baa aadoo muqdisho xoreeyey dhaqaalaheenni baa ku baxay dastuurkii baa wakhti badan galay abaal waxaa noo laga dhigay in lagu abiyoodo ma xaq baan u leennahay xoghaynta madaxweynaha ee hadda ra'iisul wasaaraha sheegta farriintu ku soo faray waan maqalnay waa xoghaye wuxuu leeyahay shaqaale dhallinyaro baa loo diiday shaqadiisii baa la qaatay muxuu shaqo kale siin karaa ma cid buu shaqo siin karaa shaqadiisii baa madaxweynuhu qaatoo dastuurkii ku tuntay waa markii ugu horraysay taariikhda 60 sano la abuuray wax la yidhaahdo ergey baa la abuuray oo kabineedoo kaleeta weli ma dhicin dawladnimada Soomaaliya waxaa lagu xayuubiyey dastuurkii waxaa lagu baabi'iyey awooddii ra'iisul wasaaraha iyo awood qaybsiga raalli kama noqonayno dhismaha dawladnimada iyo difaaca dalka iyo wax qaybsiga Puntland baa wakiil u ah ma garateen ma difaacnaa ballan ma tahay difaaca ugu muhiimsan waxa weeye 25 inaan corayno 25 ka hor dadka reer Puntland waxaan farayaa inay Laascaanood xorayaan codkoodana doortaan oo golayaashooda la soo baxaan maalintaasaa war noo yaalla annaga iyo nimanka hadlaaya ilaahay idankiis wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma ogtahay maantaba inaad ka maarantid inaad tagto xawaalad haddii aad ku sugan tahay Yurub iyo Ameerika baysi waxa uu ka haqabtirayaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada kala soo deg App Store-ka iyo Play Store-ka